kulanti wacan daawada meel walbo dunida ka joogtid kusoo dhawow musalsalka qalbi ma qaybsamo ama jooti sardaarin sida u wada taqaaniin saddex xalqa iyo muuqaalka ku falanqeynayna maanta kama garana 10 xalqo. Xalqada 198 haddii aan ka bilowno waxay ka bilaabanaysaa gabadhii meher ahayd oo soo wacaysa sarabji ayay soo wacaysaa, waxay doonaysaa marka inay runta u sheegto, runtaasoo ah qaabkii ay ku joojin lahayd arooska Geni. Ilaa waxay ogaatay Geni iyo waliba Rana inay isjecel yihiin, balan ayay labadoodani ka qaaday inay labadooda midaysiin doonto. Qaabkii ku midaysiinaysana waxay tahay inay sarabji runta u sheegto, isagana si uu arooskan u joojiyo. Haddaba gurigeedii kale ayay joogtaa, taleefankay kasoo wacaysaa sarabji, isagana gurigii ayuu sharaxayaa, isagii Harleen gurigii oo dhan ayay sharaxeen sababtoo ah martidii gabadha Geni guursanaysay ciddii guursanaysay ayaa soo socdaan. Sarabji marka taleefankuu ka qabanayaa, waxay leedahay waxaan doonayaa arrin muhiim inaan kala hadlo. Wuxuu leeyahay taleefanka ma wada hadlayno sababtoo ah aniga intaan ku imid ayaad adigu i diiday inaad ila hadashid oo waad iska seexatay, sida awgeed adiga ii imow markaas ayaynu wada hadlaynaa. Markaasay go'aansanaysaa inay baxdo maadaama ninkan uu diiday inuu taleefanka wax ka dhageysto. Markay soo baxdo, qoyskiina way soo socdaan, meher way imaanaysaa guriga, waxay isku dayaysaa sarabji inay la hadasho, laakiin isaga hooshii ayuu ku mashquulsan yahay. Mar walba waxay leedahay ila hadal, isagiina waa mashquulsan yahay. Waxaa dhacaysa taleefankii meher inuu qaadanayo yalkii yaraa ee baram ahay, game ayuuna ka ciyaarayaa. Martidii waa imaanaysaa, waliba ninkii guursan lahaa Geni cideedii iyo isagaba. Harleen ayaa soo dhaweynayso, sarabji isagana wuu soo dhaweynayaa, qoyskii sidii loo wada joogo. Waxaa dhacaysa meher inay mar walba daba socoto oo ay dhegeysan leedahay sarabji, isagana wuxuu leeyahay aniga xitaa inaan kula hadlaa rabaa. Harleen ayaa sarabji wadanayso, waxay leedahay haddii arrin muhiim aysan jirin soo bax isoo raac. Martidii ayaa la wada fadhiyaa, Geni waxay wacaysaa taleefankii meher, laakiin taleefankii meher waxaa haya cunugii yaray oo mar walba ku daminayo. Haddaba meher waxay isku dayaysaa, waxay leedahay horta marka ugu horeysa waxaan yaa loo diyaariyey, waxaa loo sheegay Geni in loo diyaariyey martidiina ay imaanayso. Markaasay leedahay sideen ugu sheegay sarabji in Geni iyo Rana ay isjecel yihiin, maxaase sideyse ku fahamsiiyaa maba i maqlaye. Ugu dambeyn ninkii wuu imaanayaa, Sandu ayaa la dhahaa, waana ninka guursan lahaa gabadhan Geni ah. Geni iyadana way timid, gym ayay ka timid, way soo jimicsanaysay maadaama miisaankeeda uu culus yahay. Markay imaatayna waxay ogaatay in markaasi uu arooskeedii dhici rabo ama ciddii soo guursan lahayd ay soo doonteen. Waxay wacaysaa marka taleefankii meher, laakiin taleefankii meher cunugii yaraa ayaa haya, wuu ku daminayaa mar walba. Genina waxay u maleysaa in meher ay taleefankii hayso misana ku daminayso. Waxay leedahay meher maxaad damacsan tahay, qaab noocay ayaad igu caawin kartaa, taleefankiiba waad igu dhageysanaysaa, maxaan sameeyaa hadeer. Haddana mar kale ayay wacaysaa, markii in cabaar ah sidaas loo galo gabadhii Geni ahayd oo taleefankii laga qaban waayo, waxay leedahay okay haddii aad doontid hay caawinin, aniga og qaabkan isku caawin lahay nafsad ahaanteyda iyo qaabkan baxarkan kaga bixi lahay, arooskana u baajin lahay. Xalqada 198 halkaasay ku dhamaanaysaa. Waxaan gudagelaynaa marka xalqada 199 oo iyadana lagu tusayo gabadhii Geni ahayd oo wacaysa Rana. Waxay leedahay meher taleefankayga ma qabanayso, inay caawiso ma doonayso, maxaan sameynaa. Rana wuxuu leeyahay waxba ha ka walwalin, meher waan ku kalsoonahay, wayna caawinaysaa, iyadana wax walba xalinaysa, iska sug. Markaasi Geni waxay leedahay haddii wax yar kadib ayna caawin weyso misana tallaabo degdeg ah ay qaadi weyso, aniga ayaa markaas tallaabo degdeg ah qaadayo. Meher taleefankeedii ayay baadigoobaysaa, meel walba ayay ka raadinaysaa, laakiin cunugii ayaa ku ciyaarayo. Sarabji isagana wuxuu la joogaa martidii, fursad ay meherku iskula hadlaan wuu waayey. Ugu dambeyn Geni markii dulqaadku ka dhamaado, qoraal ayay u diraysaa meher, waxay leedahay anigii Rana isla baxsanaa. Wiilkii yaraa ayaa taleefankii hayay, wuu u jawaabayaa, wuxuu leeyahay haa isla baxsada. Kadibna Geni goobtii bay kasoo cararaysaa,
ayadoo markaasi Rana u sheegayso iyadii iyo Ranana way isla baxsanayaan. Markaasi martidii waxay leeyihiin gabadha Gini inaan aragna ayaan rabnaa. Herlin ayaa dalbanaysa Gini laakiin waxay arkaysaa taleefankii Meher oo meesha yaala cunugii yaraa kaga tagay. Qoraalkii markay akhrisatana way naxaysaa, banaankii usoo bixaysa iyadoo aad iyo aad u walwalayso. Waxayna ogaanaysaa in Gini aysan joogin, martidiina ay ku ceyboobi rabaan. Sida awgeed qorshe ayay degaysaa. Waxay leedahay martidii ayay u tagaysaa, waxay leedahay gabadha Gini way xanuunsan tahay, hoos uma soo degi karto. Barnaamijka ducadan haddii aan beri ka dhigana maxaad ka qabtaan? Waxay leeyihiin maxaa ku dhacay, xaalkeeda waa sidee? Waxay leedahay Herlin qandho daran ayaa saaran, sariirtii way kasoo kici la'dahay. Waxay dhahayaan hadday saas tahay waan booqanaynaa, waa qof xanuunsan. Qolkii gabadhii Gini ayaa lasoo wada aadayaa. Gabar shaqaale ayaa sariirtii jiifatay oo Gini iska dhigaysay, wejigeedina daboolatay. Markii la dul imaado Gini ayaa loo maleynayaa wejigeedii uu daboolan yahay. Sarabjii xitaa sidaas ayuu u maleynayaa. Martidu ugu dambeyn waxay ogaadeen in gabadhan ay xanuunsan tahay, wayna iska baxeen. Sarabjii wuxuu leeyahay gabadha way fiicneede, maxaa ku dhacay? Herlin ayaa qabsanaysa Meher, waxay leedahay Gini halkeed geysi ii sheeg. Ileen qoraalkii ayay aragtay moobilka. Meher waxay leedahay maxaan ka ogahay? Sarabjii wuxuu leeyahay Meher maxaa Gini maqnaashaheeda oo ay ka ogaan kartaa? Ileen Sarabjii wuxuuba arkay Gini inaysan sariirta saarnayn uu qof kale yahay. Markay martidii bixeen ayuuna ogaaday in Gini lala ayay oo ay baxsatay. Markaasi Herlin waxay leedahay adiga iyo qoyskeeda ayaa gibin gabadheena Gini la baxsadeen halkii aad geysay sheeg. Adiga waa ku caawisay, qoyskaadan gabadha way la baxsadeen sababtoo ah qoraalkaada ayaan arkay. Haddaba Herlin waxay go'aansanaysaa inay gurigii Meher aado, xaqiiqada rasmigana soo ogaaday halka ay Gini jirto. Xalqada labaadna meeshii ku dhamaanaysa iyadoo lisqabqabsanayo. Haddii aan kusii darno sharaxaada xalqada saddexaad ay xalqada 200 waana xalqada saddexaad ee muuqaalkan aan ku falanqeynayno weeye. Xalqadan waxay ka bilaabanaysaa waa xalqada 200 misana waa xalqada saddexaad aan muuqaalkan ku falanqeynayno kuna gabagabeynayno. Waxay ka bilaabanaysaa markaasi Herlin oo soo baxday gurigii, waxay imaanaysaa Meher. Qoyskii Meher ayay la kulmaysaa. Waxay leedahay waxaan u baahanahay Gini, walaashay Gini ayaan u baahanahay. Waxaa la leeyahay Gini halkan ma joogto. Waxay leedahay Gini waxay la baxsatay Rana, waan ogahay, waxaana ku caawisay Meher. Idinkana arrinkan waad ogtihiin. Gabadha Gini mas'uuliyaddeeda way saaran tahay, hooyadii ayaa igu amaaneysatay. Waxaan ugu jawaaboona malahan i siiya gabadha Gini waxaa la leeyahay Gini halkan ma joogto. Herlin buuq ayay bilaabaysaa. Waxay la hadlaysaa Meher oo meesha joogto. Waxay leedahay Meher arrinkan adiga ma ogtahay, runta sheeg. Meher way aamusaysaa. Markii aamusta kadib taleefankaada sii ayaa la dhahayaa Meher taleefankeedii waxaa qaadayaan Herlin iyo Sarabjii. Sarab wuxuu aqrinayaa marka qoraalada. Horta message call ayaa la arkay 12 jeer ayaa la soo wacay Meher, waxaana soo wacday Gini muddo 1 saac gudaheed. Intaas kadibna fariin qoraaleed badan ayay arkaysaa, waxaana akhrisanaysaa Sarabjii. Fariin qoraaladii markay akhrisato waxay ogaanaysaa markaasi in Meher ay ku caawisay bixitaanka gabadhani. Waxay tiri isla baxsanaa aniga Rana, waatii ay Gini sidaas tiri. Meherna waxay dhahday ha isla baxsada. Qoraalkaas Meher ay dhahday waxaa jawaabay cunugii yaraa ee Meher afkeedii kama aysan dhihin ama qoraalkaas iyada ma dirin. Intaas kadib Sarab ayay qabsanayay Meher. Wuxuu leeyahay maxaad arrinkan iigu sheegi weysay? Waxay leedahay waan kuu sheegi rabay laakiin adiga fursad ima siinin. Sarab wuu caroonayaa, goobtana wuu ka tagayaa. Waxay leeyahay waad ii khiyaantay, sidan oo dhan kama filaynin. Ugu dambeyn wuxuu leeyahay anigu marna uma aaminsanay in Meher arrinkan oo dhan ay iga qarisay. Qoyskii Meher waxay leeyihiin anaga sheekadan shaqo kuma lihin. Kaameradii CCTV-ga iyo tusaayin ay kaameradii qarsoon eed. Waxay dhahayaan Gini halkan iidaa timid oo wiilkeeni ka xisatay. Isagoo halkaas intuu imaaday ma wadanin. Waxayna tusaayin muuqaalka Gini oo guriga soo galayso, Rana gacanta qabsanayso misana la baxsanayso. Marka waxay leeyihiin idinka ayaanba idinka rabnaa wiilkeeni halka ay Gini u wadatay. Anaga wax gabadh maynan soo wadanin, sidaas ogaada. Sarab wuxuu leeyahay si kastay ahaataba aniga waxaan la yaabanahay Meher sababta iiga qarisay arrinkan. Meher waxay leedahay inaan kula hadla ayaan rabay laakiinse waxaad ogaataa adiga fursad ima siin. Midda kale aniga qoraaladan iyo waxaan shaqo kuma lihi. Intaas kadib waxaa dhacayso
Sarab isagoo careysan ayuu goobta kasoo tagayaa, waxaana go'aansanaya inuu gurigii imaado. Meherna wuu diiday inuu dhegeysto. Markuu gurigii imaado, gurigii oo sharaxan ayuu qasayaa. Caro awgeed wax walba wuu jajabinayaa. Meherna way careysan tahay, way oynaysaa, qolkeedii ayay ku jirtaa. Waxayna wacad ku maraysaa markaasi inay caddeyn doonto inaysan iyada arrinkan wax qalad ah ku lahayn, fariin qoraaladaasna aysan dirin, Gini iyo Ranana aysan isla baxsada dhihin. Waxay wacad ku martay markaasi inay soo celiso gabadhani. Waxay u tagaysaa qoyska, waxay leedahay Gini iyo Rana halkay joogaan. Waxaa loo sheegayaa hotelka ay labadoodii isla aadeen. Hotelkaas ayay aadaysaa Meher si ay labadooda u soo celiso, laakiin kaligeed ma bixayse waxay hore u wadanaysaa markaasi ninkii Sarabji ahay. Xalqada halkaasay ku dhamanaysaa macal goosgooska. Waxaan beri idiin soo bandhignaa marka 10 xalqo, maanta 3 xalqo waxaan usoo bandhignay, waqtigaa nago yar, laakiin beri insha Allah 10 xalqo ayaan soo bandhigaynaa anagoo ka bilaabayno xalqada 201. waxaan ku ekeynaa xalqada 210 insha Allah. Wabillahi tawfiiq. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.